kulanti wanaagsan daawadayaasheeda sida tooska ah ugu xidhan Somali TV waxaanu maanta wax ka ogaan doonaa ama aan warbixintani ku eegi doonaa taariikh nololeedka kaligii taliyaha da'da yar ee ka arrimiya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. kaligii taliyaha gacanta adag ee ka arrimiya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa xilkaasi qabtay sanadkii 2011. hogaamiyaha wajiga yar ayaa inta badan maalin walba waxa laga soo wariyaa go'aano iyo siyaasado aad loola yaabay adduunka. taariikho kala duwan ayaa laga soo sheegayaa sanadkii uu dhashay Kim Jong Un, laakiin iyada oo la raacayo warbaahinta Kuuriya inta badan wararka ay ka sheegaan taariikhda dhalashadiisa ayaa waxa la sheegaa inuu dhashay sanadkii 1983. sidoo kale warbaahinta dalka Mareykanka ayaa inta badan sheegay inuu Kim Jong Un dhashay sanadkii 1984. Kim Jong Un ayaa waxa uu hogaaminta dalkaasi kala wareegay aabihiis kadib markii uu geeriyooday, waxaana awowgiis uu ka mid ahaa aasaasayaashii Kuuriyada Waqooyi sanadkii 1948. wararka sidoo kale laga soo warinayo waxbarashadiisa hogaamiyahan da'da yar leh ayaa la isku khilaafsan yahay. warbixino ay Kuuriyada Waqooyi inta badan ay soo saartay ayaa la sheegay in Kim Jong Un uu ka baxay jaamacadda militariga ee ku taala caasimadda Pyongyang, waxaana xilligaasi la sheegay inuu bartay maadada fiisigiska. sanadkii 2006 ayaa hogaamiyahan uu qabtay xilkii ugu horeeyay ee rasmi ah, xilligaasi oo uu aabihii u magacaabay xubin ka tirsan guddida difaaca ee kacaanka ee Kuuriyada, isla markaasina aabihiis waxa uu u magacaabay dhaxal sugaha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. sidoo kale sanadkii 2010 ayaa waxa uu Kim Jong Un isku qabtay ugu yaraan 4 xil oo aad u culus. geesta kale Kim Jong Un ayaa sanadkii 2011 si sharci ah ula wareegay hogaaminta dalkaasi Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu sameeyay dib u habayn dhaqaale oo uu u adeegsaday ciidankii kacaanka ee dalkaasi. waxa uu soo saaray xeerar aad u culus. xeerarkaasi qaar ka mid ah ayaa dhiirigelinaya in ay ganacsatadu maalgashadaan dawladda, waxaana ay taasi Kuuriyada Waqooyi ka caawisay in ay ka maaranto alaabahay inta badan ka soo dhoofsan jireen dibadda. hogaamiyahan da'da yar leh ayaa waxa uu dardar gelinayaa doonistii aabihii iyo in dalkaasi uu yeesho hubka nukliyeerka. bishii February sanadkii 2016 ayaa uu tijaabiyay gantaal ay samaysay hay'adda nukliyeerka ee Kuuriyada, kaasi oo gaadhayay masaafad ay dhererkeedu dhan tahay 1800 mitir. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xilligaasi ku tilmaamay xadgudub aad u culus. wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa geesta kale xilligaasi iyaduna waxay sheegtay in awoodda Kuuriyada Waqooyi ee dhanka nukliyeerku ay sare u kacday intii uu xilka hayay Kim Jong Un. geesta kale warbixinaha kala duwan ayaa sheegayay xilligaasi in ay gantaalada Kuuriyada Waqooyi ay sameeyeen ay gaari karaan dhammaan xuduudaha dalkaasi Mareykanka. waxyaabaha cajiibka badan ee laga soo warinayo hogaamiyahan da'da yar leh ee ka arrimiya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa ah in uu dilay qaar ka mid ah hogaamiyaashii sare ee kacaanka, isla markaasina uu ka mid ahaa adeerkiis. dilalka saraakiishaasi uu dilay ayaa uu ka tacsiyeeyay warbaahinta dalkaasi Kuuriyada Waqooyi si shakhsi ah, isla markaasina waxa uu sameeyay in uu ka qayb galo aasaskii loo sameeyay. Kim Jong Un ayaa sidoo kale sanadkii 2017 waxa uu walaalkii shirqool sun ah oo dila uu ugu maleegay madaarka caasimadda dalka Malaysia, isagoo xilligaasi ka daba joogay dhaliilo siyaasadeed oo uu xilligaasi u soo jeediyay walaalkii. sanadkii 2014 ayaa waxa uu qaramada midoobay Kim Jong Un ay ku eedeeyeen in uu ku kacay falal ka dhan ah bini'aadanimada, waxaana hogaamiyahan
ay qaramada midoobay soo jeedisay in la saaro maxkamadda cadaaladda ee adduunka. dowladda Maraykanka ayaa inta badan il gaara ku eegta dowladdaasi Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay cunaqabatayn isdaba jooga ku soo rogtay dowladda Kuuriyada Waqooyi iyo mas'uuliyiinta ugu sarsareeya dowladdaasi oo uu hogaaminayo Kim Jong-un. daawadayaal, intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa warbixin gaar ah oo aanu ku eegaynay taariikh nololeedka hogaamiyaha ka taliya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi oo inta badan laga soo wariyo warar aad u la yaab leh. anigoo Cabdirashiid Cali Barre ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.